maalin kasta askarta booliiska gaar ahaan kuwa ku sugan goobaha kontaroolka iyaga dhaxdooda ayaaba maxkamadaha dalka ka soo muuqda gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida askari ayaa dee baabuur kaasoo loogu shakisan yahay in saariin waxyaabaha qarxo sargaalkiisa ama askari kale oo daacada ayaa celinaya dabadeedna labadooda ayaa isdagaalaya mid kamid ayaa sidaan u kala isbitaalada u jiifo maalmo ka hor sheeko noocaas oo kale ayaa hortaalay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyadoo sargaal iyo askartiisa intay iskhilaafeen mid kamid ah qori soo qaatay qof kale oo isagana kamid ah askarta halka uu ku dhintay labadoodina maalin ka hor maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka soo muuqdeen maanta hadana waxaan arkaynaa ninkan aad u jeedaan horta ka hor intaan gudaha u sii galin muuqaalka tani waa fariin kale oo loo diri kara askarta iyagu dhaxdooda dhibaatada isku haayo baraha controlna ku sugan intani u noqoto digniin la sii wadaag muuqaalkan marka hore ninkan aad u jeedaan waa dhaawaciisana madaxa ayaa xabad loogu dhuftay askari kale oo ku sugnaa goob bar control oo ilaalo ah oo dawladdu ay ka kontaroosho baabuurta Muqdisho oo dhan dhamarto sida baabuurta inta u dhaxaysa Xamarweyne waa bari degmooyinka kala duwan ka yimaada ee maro bar control oo ku taalo 21 October oo ku taala degmada waa bari ee gobolka Banaadir askarigan aad u jeedaan ninkan waa askari hadda wuxuu yaalaa dhaawaciisa mid kamid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho ninkan aad u jeedaan baabuur ayuu celiyay isagoo shaqadiisa qabsanayo nin kale oo sargaal ayay murmeen baabuura adiga fasaxayn sidee adiga ku celin kartaa xabada ay madaxa lagu dhuftay kaliya waxa lagu haystaa waa maxay sababta baabuur anigu aan fasaxay adiga baaritaan aad ugu sameyn kartid miis weydiisaa marka baabuurta qaraxyada wada shabaabka gudaha Muqdisho dhibaatada ka geysto sidaan oo kale inay yihiin baabuur la isku daayo la iskuna dagaalo qaarkoodna laaluush bixiyo kuwa kalena iyagoo marka laaluushka aan bixininba kor laga soo amray in baabuurtaas aan la baarin askarigan maanta wuxuu isbitaal u jiifaa maxaad baabuurkan u celinaysaa aniga ayaa fasaxay isagan wuxuu leeyahay shaqadeeda ayaan wataa oo aan qabsanaa taasi adigu kuma weydiin doono sidee aniga hadal igu soo celin kartaa bash xabada madaxa lagu dhuftay taasi waxay u baahan tahay in dhibka ninka geystay iyo kuwa la midka ah ee ku jira booliiska Soomaaliya in laga dhax qabto ciidamada dhaxdooda si ammaanka dalka iyo gobolka uu u noqdo mid hagaagsan sidee baabuurkan u fasaxi kartaa aniga sidee baabuurkan u celin kartaa aniga fasaxay oo kaliya ayuu hadda halis ugu jirtaa noloshiisa oo dhanba haddii aad isweydiin jirtay baabuurta shabaabka ee qaraxyada wada halkee maraan sidaan oo kale halkan ay maraan muuqaalka qabo mar kale la wadaag saaxiibadaada mahadsanideen bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo